السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود وهذا رفيق أكاديمي عشر كينا وحكو سابسين هاي وذا شاكيسي ودحية ويلير أو أردي إيو هويدي أو كوذا شاكيسانايا أخرس كيسا إيو وحيابها وسكولكا كسو برتي هويدا أي هذا الكبلابي سوحي لذا هباريا جيوني جمال أي لذا قلب وناكسن جمال أي لذا وحلقة قلبتي مكوكي يمد سكولكا كديب asana wuxuu ugu jawaabayaa njema mama na wewe je umeshindaje ayuu leeyahay wanaagsan oo wacan hooyo adigana maxaad ku hargashay ayuu leeyahay adiga maxaad ku hargashay hooyada waxay leedahay nimeshinda salama mwanangu umejifunza nini leo waxay leedahay nabad baan ku hargalay maxaad soo baratay maanta iskuulka maxaad ka soo baratay ayay leedahay wuxuu leeyahay shuleni nimejifunza mengi leo mama wuxuu leeyahay shuleni nimejifunza mengi leo mama iskuulka maanta wax badan baan ka soo bartay ayuu leeyahay iskuulka maanta wax badan baan ka soo bartay ama aan ka soo faa'iiday ayuu leeyahay maxay leedahay hooyada mwanangu niambie mulisoma nini wiilkaygiiow ishek maxaad soo barateen ayay leedahay maxaad soo akhrisateen wiilka wuxuu leeyahay jamaal leo tulifundishwa umuhimu wa salamu ayuu leeyahay leo tulifundishwa umuhimu wa salamu jamaal wuxuu leeyahay maanta waxaa nala baray muhiimadda salaanta ayuu leeyahay salaanta qofka oo la salaama muhiimadda ay leedahay ayaa nala baray ayuu leeyahay leo tulifundishwa umuhimu wa salamu hooyada waxay leedahay haddana waxay su'aalaysaa mwanangu kuna kitu kingine mulisoma leo waxay leedahay wiilkaygiiow wax kale oo aad barateen miyaa jira maanta wax kale oo aad barateen ma jira ayay leedahay wiilka wuxuu leeyahay ndio mama tulifundishwa somo la hisabati ayuu leeyahay wuxuu leeyahay haa hooyo waxaa nala baray maadada xisaabta ayuu leeyahay ndio mama tulifundishwa somo la hisabati haa hooyo waxaa nala baray maadada xisaabta mamada waxay leedahay umefahamu vizuri somo la hesabu ma fahamtay maadada xisaabta ayay leedahay umefahamu vizuri somo la hesabu si fiican ma u fahamtay maadada xisaabta si fiican ma u fahamtay markii lagu bari kadib wiilka wuxuu leeyahay ndio nimefahamu mama ni somo rahisi sana wuxuu leeyahay haa waan fahmay hooyo waa maada fudud ayuu leeyahay maadada xisaabta waa maada fudud oo maada adag ma aha mamada hooyada waxay leedahay mwalimu wenu wa hisabu anaitwa nani macalinkiina xisaabta magaciisa ayay leedahay macalinkiina maadada xisaabta magaci jamaal wuxuu leeyahay anaitwa Bwana Abdi ni mwalimu nzuri sana anatufahamisha vyema ayuu leeyahay waxaa la yiraahdaa Abdi waa macallin fiican si fiican na wax noo fahansiiya ayuu leeyahay si fiican buu wax noo fahansiiyaa anaitwa Bwana Abdi ni mwalimu nzuri sana na anatufahamisha vyema ayuu leeyahay waa macallin wanaagsan si fiican na wax noo fahansiiya ayuu leeyahay wax noo bara mamada waxay leedahay anaishi wapi mwalimu huyo ningelipenda kumjua intuu ku nool yahay macalinka xaguu ku nool yahay macalinka waxaan jeclaan lahaa in aan la kulmo ayay leedahay in aan barto anaishi wapi mwalimu huyo ningelipenda kumjua macalinka xaguu ku nool yahay waxaan jeclaan lahaa in aan barto Jamaal wuxuu leeyahay anaishi karibu na shule yetu hata ninaweza kukupeleka sahi ayuu leeyahay wuxuu ku nool yahay iskuulkeena atiisa ama iskuulkeena hareerihiisa ayuu ku nool yahay hataa hadda waan ku keen karaa ayuu leeyahay
wuxuu ku nool yahay iskuulka atiisa, haddana waan ku geen karaa. Maamada waxay leedahay sijakuwa tayari labda siku nyingine, hadda diyaar ma ihi, laga yaabe maalin kale ayay leedahay. Laga yaabe maalin kale ayay leedahay oo hadda diyaar ma ihi in aan soo arko macalinka ama aan soo la kulmo. Jamaal wuxuu leeyahay sawa mama, ma waayahay hooyo. Cashirkeena maanta halkan ayuu ku egyahay. Fadlan kanaalka haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro, haddii aad hor u subscribe garaysina share, like and comment. waad ku mahadsan tahay daawadashada muuqaalkani. Fadlan subscribe ha ka iloobin. Cashirkan iyo cashiro kale oo xiiso badan ayaa soo socda.